haddii la yiraahdo fiiri cunug kamida ilmaha hadduu lacala ku soo dacweeyo oo maaragtay baarantiga soo dacweeyo ilmaha lama kala reebo la dhihi maayo micnaha kala soo dacweeye iyo kanu sooma dacwoonin iyo ma jirto waa la wada qaadanaya hadday 18 ka hooseeyaan marka familkan ilmuhu waa wada yar yar waxaan u malaynayaa gabar ba weyn ama wiil ba weyn labadooda waa isla dhir eg yihiin kan ugu weyn hadduu yahay 13 jir haddii kale waaba ka yaryaa ma fahamte marka ilmaha la kala reebi maayo waayo ilmaha kulli way abiyuseen cidaan ilmaha caadi oo abiyusku ma ahan in la dilo kaliya laakiin maskixiyan ay dileen waayo waxa afkooda ay sheegayaan sharciyan ku sheegaya furanay mid baan ku sheegaya wali dad dira waxa ka dhaadhicila gabadha waxa la leeyahay waa hawiye oo abgaal ayaa la sheegay abgaal qubaysana way jiraan laakiin dir waxa ka dhaadhicila wali gabadhani waa qubays وقسينا أرتبيلا قبول كيرجع سو قبضني إذا كان يجمع سوجيدو حسنا وقعد ظاهر ورئيسنا يو سلطان قبضان مركي لو ورئيستي هرت كو تيك توك وحي كجوك قبيس علولي وكان سقرها قبيس علولي سو مجرى لمن أبقى قبيس علولي ليدا ولي ما مقال قبيس علولي أبقى عمري ما مقال منجرتو سلطان تانكالي gabadhaanu afkeeday ka sheegatay fiiri markii hore ayadaa tirma jeerteen baan ahay laakiin habeen dhaweeta markii qolka lagu soo qabta daahir ayadaa sheegato diran ahay dir marka dir mahawiyay gashaa diro oo mujufo kamida abgaala dirta dhan waa maya gabadhaanu diray sheegatay markii horena TikTok Facebook waxay ku joogtaa naag ma jeerteen inay taa labadaas reer ay u dhaxaysaa labadaas reer ayay u dhaxaysaa cid saddexaad meesha kuma jirto wiilkaas waa haray wiilku waxa weeye waa dadka la yiraahdo begadiga ee reer afgooya degan weeye hooyadiisna waa naag ma dhibaana ma fahamtay because annaga afkoodan xugminaynaa annaga carabkooda ayaan xugminaynaa shalay ma jeerteenay ahayd maanta la diray sheegata marka diru ma ahan hawiyana badda dhanba kuma jiro laakiin dad dira oon arkay ama aniga la soo xidhay ama xaggan media ka dhibtay waxay yiraahdeen abgaal waxa jira la yiraahdo niman qubayso caloolaya marka daahirna sida uu soo qabtay gabadha waa been hayaan ku siiyo daahirna sida gabadha u soo qabtay maxaa keenay meesha inay gabadhu tiraado qubays dir baanahay oo qubays baanahay oo hooyadayba waxa laga shakiyay habar yoonisa oo muciidayba ma jeerteena waxa soo dhan says kugu beegbeegtay isku keentay may tiraado aniga waxaan ahay gabadh qubaysaan ahay oo surraa ma intaas oo tiraado inta ay dir meel dheer aadayso macnaha waxay ka wadaa aniga saan u fahmay markii ay hadlaysay reerahaas oo dhan wax ii galeen marka ma jeerteenka waxaan u sheeganayay camal reerkeena dirta camal aan ka cabsanayay tir wax saas camal ma fahamtay laakiin kulay gabadhaanu labadaas reer ma dhaafsiisana midda kale midna ogaaw qubays caloolay cid la yira oo abgaala haday soo baxdo caawa lacagan bixina abgaalka soo saar qubays caloolay ma jirte intay beenta ka keeneen hadeerta bir waad maqlaysaa walaal leeyaado abgaal qubays caloolay ma jirto qubays caloolay ma jirto abgaal la yiraahe bal beenta xoogaa yareeya naga yar bismillaahir rahmaanir rahiim habar gidir caloolay yana soo saara habar gidir waa caloolayna soo dhaha bal wax kale idin dhima lama arka Soomaali soo dhawow war adduunkan ilaahay waxaan siinayaa gabadh Soomaaliyeed baan siinayaa hadday maqlayso isug waa laga horeeyaa gabadha waxa ka horeysa Soomaali baa ka horeysa haddaad maqlaysid gabadhaasi muddo ku jirta nashaad baan siinayaa nashaad soo dhawow qabiilkaaga sheeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ قبيل كاغا ولا هوية اوكي هوية سو دغو كسعو والله انو waxaan reerkan oo meesha gadaasha أنا ما أدري أنا ده Soomaali waa ka soo baxday nashaad dawlkay gal Soomaali soo dhawow okay gabadhaas waxa laga yaabaa inay busy tahay nashaad ayaan u gudbiyay nashaad soo dhawow walaal reerkan horta ilmaha yarka ilaahay ha xafido waas waxa waaye reerkan laakiin ina sawirkooda xataa gadaal soo dhigatay ma ahayn dadkan ina waa ka qaadayna waa runta wax fiican ma ahan ma fahanti qofka arko ina habarno ina
أنا ما أبغى dadkan social media ku jiro waxaan sameynaa anagu bay rabaa inay dambaajiyaan waa qofka dad xumaan sheego dadka Ilaahay iyo yawmal qiyaamo u sacafinayn waa dadka inta xumaan sheegan dadka sii faafiyo qofka xumaan sameeyo qofka sii faafiyo waa isku mid marka dadka anaga dambaajinayaan ilmaha sirka inaan u duceeyno si jamac u duceeyno Ilaahay inuu xafido oo xaafid ka dhigo Ilaahay waxa xafidi kara meel kasto la joogo dadku waxay soo qorayaan waa ardaydeedii way wanaagsan tahay qofka bilaadka wala duu soo baxo dad badan baa ku xidhnaa gabadha okay nashaad aad baad u maasan tahay waxaad siinayaa fuaad baan siinayaa qofka sare aad iyo aad war sultan aad baan kugu salaamayaa niyo salaantii islaamka isku salaamay waxaad ka hormarisay qabiilkaagu yahay adigoo salaanta qaadin okay waa yahay inaad macallin dhibaata okay waa yahay calaykum assalaam qabiilkaagana sheeg niyo aniga nin mareexaan baan ahay waxa waa dadkan aad dhihisiin ilmaha laga qaat magaaladoodan deganahay yarkan waa isnaqaanaa oo yar taraagla waaye brother waxa waaye horta haddii meesha soo gasho qolooyinka ilmaha qaato brother ilmaha horta soo noqod ma laha second ilmaha waa la weydiinayaa familkan waliyaa familo u dhow oo u jooga magaaladan ama wadankan u joogo oo la siinayaa aniga haddaan soo baxno aniga ilmaha igu wareejiyo waa in sixlii qaadaa waa in shaqadeeda la fiiriya waa in wax aan qabto inaan waxa waaye aan ahayn criminal inaan ahayn waa in okay mareexaan hal su'aal ku weydiinayaa waxaad tidhi wiilka waan iska leenahay wiilka waa taraagle wiilkani wuxuu sheegtay qabiiladiina ayuu sheegtay idinku wiilkan qabiilkeed ka ogeydeen ama gabadha qabiilkeed ka ogeydeen walaal wali qabiilada ayaa isku haystaa ونيو نيك ونين بجدي جبدنا وجبر أبجال ما قرأت أبجال سما وكذا تروح كل شيء وكسر البلاد كسر ما قرأت سلطان إن هذا علي ماشي إلما الصومالية ذاك كبحايو إلما الصومالية إلمهني يا قال قادنا مركا إن لو بجدي محيا مركا قبيل كم بجدي محيا قبيل كم بجدي ما عد ماني مركا برا ود جبا والله نيو هوية وديني سكول هوية سرد جاني هذا علي ما قرأت أوكي دوران ما مقلسا waxay irsug faad duran laba jeer baan ku xirtay waxa ku gabadhu waa abgaal baan ku ri laakiin waad iga diiday wiil la degan Canada waxa ku sheegay ku waa bagadi sidii aad sheegtay wiilku waa bagadi laakiin gabadhu waa abgaal waxa aad maqlays sultan aniga hadeertaan waxaan ku keenayaa codadkeedii ayadoo sheegaysa af jooga iyo adimo loo aad midna looma adeego wiilkan waa iska hadlay qof iska hadlay ka dhig wuxuu qiyaasay gabadhaanu hawiyaba meesha kuma aysan soo darin bataatan ba hawiye kuma ay soo dirin markii la wareysanayay habeen hore codadkeeda aniga anaa duubay waana haya waxa daahir ka hadlay booskiisana anay ahayd oo ayada dadkii ku dhagalaa kamid ah ma fahamtay markii ka bacdina waa la tay soo gashay anaana codadkeedu duubay ayadoo reerkeeda sheeganaysa markii hore ma jeerteen baan ahaayay tiri markii hadda maxaad ma jeerteen u sheegataa la yiri reasonkaas xogaa way ka wareegaysatay gabadhaas waa ma jeerteen boqolkiiba aniga waxaan isiri 40 ka soo harayna waxa weeye waa dir ma fahamtay hawiya meesha kuma jiro waxa soo haray begediga sultan begediga waa dad oo cadcad oo afgooya degan macnaha waa dad gibil cada oo afgooya degan laakiin hadda waxay macnaha maamul ahaan ka tirsan yihiin oo wax ku qaataan koonfur galbeed oo digilka ciidaha la dhaho ayay wax la qaataan oo digilkaasi ka tirsan yihiin waana dad gibil cada oo degan afgooy waree afgooye begediga laakiin kala duran maxaad ku diideen gabadha inay abgaal tahay wiilkani Canada ayuu la degan yahay baan ku wiilkana way iskaranayaan begedi waa ka gartay aniga ma iska leedahay mise waad hubtaa saaxiib ma iska leedahay mise waad hubtaa هذا مسلمة هبلا سيستا. والله فيري نيو سلطانو دad aqoon kuula idageysan aad irkaalay dad adigu waxa jiro aqoon kuula marka social media imaado oo qabiilka aad rabtay aad sheeganaysid dadka aqoonta kuulahay un baa sheegi kar waxa tahay inaad ma garad waan gartaas waa runtaas gobonimo inaad gabadhan gabar abgaal ah waay ninkan waa sidaan kuu sheegay waa nin ka waa qolooyinka cadcadka ah oo bagadiga ma garad hooyadiisna waa ma dhibaan uu sheegay sida marka duran markii dhigeyso duran inay meesha la soo fadhiisato duufaan abay magaceeda mudka go'an ninkan ataaga wada ninkan waa dad okay waqtiina duran waqtiina mareexan waxaad ii sheegtaa Canada joogtaa ku soco waaye ku soco si toos ah inaad argaclay labadii bar duurnimo ay tahay magaalada Edmonton jooga
هنا أرجع علي المصومالية ذا بحاي دورنا إلمها يا بحاي إن ماشى لسه في ديسة قصل حاجة ولا غير في عيها هي قبيل كذا كير رح قبل بقرة نيو إلمها maya دعي aniga وباهيين iga jeestay gabadhu دقيس هنا xataa hooyada dhasha lama yaqaan aniga ha igu soo jeesanina fikirkaaga dhiibo ha دورنا igu soo دقيس ما dhegin ماشي بيكاس ماشي googaradda okay dura raalli ahaw dura raalli ahaw قصل يصور googaradda قصل iga دش fuq دورنا ماشي بقرة googaradda iga fuq maya googaradda iga fuq دورنا googaradda ماشي iga قصل fuq abaaye macaan قصل googaradda iga قصل fuq يسيري قصل يصور ماشي قصل قشي هنا أرجع okay علي waaya مرة qalle فيرنو maxaa lagaaga foqaa المصومالية ذا قد كبحايو dee والدعي googaraddiiba وباهيين iga laalaabaayo هلو دعي maxay مقرة tahay ka foq okay ra'yigiisa waaya xiniyaa waaya uga foq waaya raalli ahaw xiniyaa uga foq waaya raalli ahaw هذا su'aal دورنا نيوز su'aal hal su'aal aan weydiinaya hal su'aal aan weydiinaya ka hal galmudug su'aal aan abaaye weydiinaya madaxweyne dura ogsinay xogaa gabadha hiidka gaaray maxaa qaldan wiilka buumaha waa u hiid sii maaha daa gabadha dura baa laydhaa iga dhigta gabadhan dura moogtaa dhegeyso gabadhan dura baa maya gabadha doone aftahan ana hiidkaaba garanaya gaaray hiid ma aniga gaadhin su'aal baan waxbaa sheegaa weydiinaya ilmaha loo duceeyaa dhahaye horta su'aal baan weydiinaya waxya fuaad su'aal baan weydiinaya su'aal baan weydiinaya su'aal baan fuaad durane weydiinaya wiilka buumaha u sii daa abaaye gabadhan anaa kaa qaana wadana baa laydhaa dadka inta badan waa gabadh aftahana weeyaan inta badanna meel badan ka hadashna qof kasta wuu garanaya qof hiidgaaraya maaha hal su'aalaan ku weydiinaya waxaan ku weydiinayaa adiga Canada joogtaa ciyaalkii saakaa lala wareegaa la yidhi waxaad nooga sheekaysaa wiilkii haddaad tihiin isku maxay ahaydeen dadka isla raaca gaariyaashan taraaga xaaladoodii dalka Canada waad ka warhaysaa maanta adaa nooga dhow saakana ciyaalkii waa la wada qaatay hadda war maxaad nooga haysaa warbixintii ugu dambeysay waan ognahay ciyaalka in la qaatay saaka wax kale maxaad haysaa ay soo galeen kool bay soo galeen mali maqlad kool bay si wacan baan ugu kool bay maqlayaa soo galeen mali in aad ergaclay horta suldaanow horta niyo ilmahan waxaa la fiirinayaa waalidkii history waxaa waaye investigation socod investigation markuu dhamaado baa ilmaha la qaadan karaa laakiin wiil cadaan baa loo diray iyo oo wiil cadaana dawlad gaarsiiyay war dawladda kaalis maxay tini number baan haystaa oo 1800 la dhahaa haddaan waco on maanta dhaaniyo suldaan ilmihiisa saani waa brother magacayga ayadoon la sheegayna ilmihii loo imaadaa ilmihii la wareysanaya inaad ergac laakiin ma aha nin social media caanka ah oo cadaan ah ayaa dawladda gaarsiiyay brother wax lagu sheekay ma inaad ergac waddankina ana degan dadkaana ana la degan please hadalka ii soo koob abo aan hadlaan hay diyaar bay marka walaal macaan ilmahan familkan laga mana qaadanin investigation socdo ilmihii waa in la wareystaa iskuulkooda in la tago waayo caafimaadka family doctorkooda in la tago la soo baaro waayo iskuulka ma tigi jireen macallimiinta in la wareysto waayo marka in aad ergaclay ilmi in toos loogu imaado oo waxaa waaye hor laga qaato ma jirto second ilmaha brother gaalada waa aragtay family ciyaalkooda hortooda khamri ku cabaan waa isku shumiyaan waxay ku dhahaan waxaas waa jecel brother waa la isku shumin karo ilmaha hortooda isku shumiyaan ilmaha hortooda isku dhudhuuqaan brother ma aha waxaan dadkan gaaladaa wadato runta idin sheeganayo family gaala waxaan degannahay waddan gaaladan degannahay marka in aad ergaclay ilmahan haddaa familka laga qaatana siday ku soo noqdaan waa adkaanaysaa adu waxaad leedahay marka waxaad leedahay halkii ugu dambeeyay lagama qaadan laakiin raadkii baa soo galay guriga raadkii baa soo galay waad maqlaysiin walaalayaal okay waxaan siinayaa si toos ah waad maasan tahay waxaan siinayaa cabsi baan siinayaa soo dhawow aadoo salaamaya marka wiilkaas horta inaad turtid maahan information badan buu hayay intaa markaan uga dhaqaaqno ma igu dhamaystay raalliyaha waa soo celinaa qadinkaaga sheeg walaa adoo maanta anigu waxaan ku hayaa riyiliga saxda ah baan ku hay dadkan suldaanyay kaa waalin qadinkaaga ii sheeg gabadhan waa daarood baan ahay daaroodkeed ka tahay sheeg daaroodka isma xabaarsanaa gabar hartiya baan ahay ما أدري هذا قول مرسنجلي أنا هاي كوس عواية إن شاء الله قولوا كده ما شفت هي كاقص سينية وحياة أوكي كوس عواية قول مرسنجلي لكن مالك الذي قصورك أو كوس عواية هي هذا السودان مid baa jirta walaalo adduunku waa la dhiban yahay dhibaato badan baa Suudaan jirta waxba meeshan soo dhaxordaya caloole iyo waxaynu fahmeen marka Suudaan gabadhan waa gabar abgaala waxba yaa Suudaan laga waalin oo tiri maalintii ugu horeysay aan arkayay ay soo gashay aan leefka ugu horeeyay ma hubta hadalka markii hore gabadha ma jeesteen baa lagu sheegayay ma hubta hadalka dhageysa hadalka iga baxo gabadhan leefka markay soo furtay dadku ugu horeeyay oo leefkeeda mataqaana oo leegta u saaray aan ahaanin faantay markii dambe casharka markay bilowdo waa iskaga baxaan faantay waxa dhaqan xumada markay gashay markii hore waxay ku soo gashay sheekhnimo gabadhan qofkii garanaya gabadhaas waxay tiri hawiye sheegatay abgaal bay sheegatay way ka booday hadana
MJ bay sheegatay MJ waxay u sheegatay maalinta dhawato waa adiga ogaa waxay tiri cabsi isoo wajahda darteed baan u sheegtay ma garanayda MJ macnaha ma wax lagu gabadaa ma fahmi karo waxay tiri MJ waxaan u sheegtay cabsi baa dareemay macnaha waxa weeye dadkii baa soo weeraray camal ma fahantay marka waxa weeye MJ waxay tiri anigu ma yihi laakiin dadkii maadaama iga badbadiyeen MJ baan ahay baan yiri tiri wayna ka baxday qof walba qabiilku wahaaba horta tagaya markii dambana wad aragtay waxay tiri hadana waxaan ahay dir oo waxaan ka seexay qabays mise surrey tiri marka gabadhan waa gabar walaal abgaala waana la hayaa fiidiyoga clipka ana hadda ku soo diriyo luuqa insha Allah clipka ay soo dhigtay maanta dhanba TikTok dhexordaya ay lahayd abgaal baan ahay hawiyaan ahay maantii gabadhan waa gabar iska cad waa gabar heer xamara waana la garanayaa abgaalku maaqa waxay u turtuurayaan hawiyo isku turtuurayaan gabadhu waa gabadhoodii niyo ma fahanti ha qaataan gabadhooda teeda kale reerku qof dhaqan xun qabiil kama hadli kareen suga baay horto ogsinaya marka hada maysato ogsinaya ciyaalka yararka baan kaaga hayaa xog ciyaalka yararka ana lama qaadin laakiin guriga waxa weeye waa la soo galay digniin warqad ordaysa loo soo diray in adduunku ma aragtay laskama tago guri laakiin digniin baa loo diray in loo imaanayo waqti tarmiin baa loo qabtay in guriga la jeekimayo marka daas way hadda way soo galeen wayna ka hadleen arrinkaas waxayna dhaheen ilmaha iyagu waa safe laakiin dee digniin baa loo diray suldaan qol guriga in la tagi doono la baari doono la jeekimi doono awlaadda la fiirin doono insha Allah iyaga la baari doono teeda kale waxaa dhaqan xumo ah in ilmaha agtiisa badeecada lagu cabo oo ayu balwad lagu hor cabo ilmaha waa mamnuuc weeye xashiishad bay ku cabaan badeecad bay ku cabaan sigaar bay ku cabaan no way caalamku waa ka mamnuuc ilmaha in lagu carabo waxaas oo dhan marka suldaan anigu waxaan ku leeyahay gabadhan waa gabar bagaala yaa laga waalin dirna shaqo kuma lahan MJ-na heer ayay inay u yihiin afkeeda iyada ka sheegtay laakiin ma hubno intaas aan ku dhiilaa okay waaya abgaal waad maqlay 705 qof aad walaalayaal Soomaali baan siinaya soo dhawow والله ويابي كالي ما قبيل كذا كهلينا مس علمي بان كهلينا ما أنت ويابي labadaba waan ka hadlaynaa sababtoo ah guriga waa la galay Soomaali waa la galay maya guriga hadii la galo muhiimadu waxa waaye anaga dan Soomaalinahay waxaan ka gubanaynaa ilmaha haday abgaal tahay haday habar dir tahay haday wicil tahay waxba naga ma gelin ma faham qabiilaadku waxay isku dagaalayaan isaga riixayaan ilaa hadda ma fahansanin laakiin gabadhan waxay sheegatay haday midgaan tahay iyo haday gaal tahay waxba naga ma gelin anaga pointiga waxa waaye ilmaha yaryarka ah oo masaakiinta ah oo islaamka ah safety-gooda anaga muhiim ah qabiilka uu iskaga riixaya gabadhu waxay ka sheekeynayso iyo qabiilada ay sheeganayso yaa is noqon weyde marka gabadhu waxay isleeyihiin qof kaste gabadhaasi haday macal qabiilka dirta haday noqoto ama hawiye haday noqoto ama ma jeertaan qof kaste wuxuu isleeyahay dhaqan xumadiiba albaabka ku timiday qof kaste saas iskaga riixaya si kala ma gabadhan suldaan oo markay daaqada daahir cali soo saareed anu waan dhageysanaya waxay tiri ma jarteen baan sheegan jiray ma jarteen ma garanayo ma dadka dhaqan ku baa ku badan saasan u sheegan jiray tar ma garanayo laakiin waxay tiri anigu waxaan ahay bir qubaysaha maanta tiri qofka afkiisa waxa uu ka dhahay uma la xukun karaa mugti dadkan kale waxa way aabaheed iyo hooyada kama soo hoos jiidin mugta qof walba wuxuu rabo sheegan karaa anaga haddaan Soomaalinahay beenta waa afuufnaa marka haday abgaal tahay iyo haday qubays tahay iyo haday ma jarteen tahay pointiga waxa waaye waa qof Soomaaliyeed oo ilmo Soomaaliyeed dib ku hayo weeyaan that's the point event marka waxa waaye aniga waxaan ku xumaaday wiilka ninka aabaha isku sheegay sidoo gabadhiisa u fiiriyay uma safiirinin inuu yaro dhalay uma safiirinin gabadhiisa wuxuu u fiiriyay sida inay tahay naag markuu ka sheekeynayo ma fahanti naag dumar amal oo ay ka gasay wax la jecel ka gashay amal buu u fiiriyay you know marka taasna ma fiicno marka I hope in inta loo yimaado lagu soo biyo investigation lagu soo biyo oo ilmaha inay maxay sexually innocent abuse gareyn hooyadana way abuse gareyn kartaa aabahana way abuse gareyn karaa mugti marka I hope inay taas ay soo biyaan marka hadii laga qaatana waxa waaye hopefully dadka familka ugu dhow ama adiga qofkii kulay mas'uuliyadda ilmahaas qaadi karo oo noloshooda kafaala qaadi karo baa loo dhiibaya ma garat hadii de wax dambi lagu soo heli waayana waxa waaye ilmahooda ayaga korsanaya laakiin pointiga waxa waaye ilaahay inuu ayaga ku duwo inay u noqoto midaan cashir oo ay faraha ka qaadaan waxa ay faraha kula jiraan oo ilmahooda diinta baraan intay ka hadlayaan korkooda ay maanta dhan wasakh ay kaga hadlayaan ma fahanti marka that's the point marka inaad eero naga jooji qabiilka war abgaaldeed war aniga anay la dhalatay wanaag habarkiido saacada weeye ka waran hala dhaafay ha noo dhaafo marka gabadha wala waad maasantahay Soomaali okay hadalkii ugu dambeeyay duro ma siinaya laabta u roon intaan ku noqonayo iyo Queen MJ duran waad maqlaysaa say wax u socdaan
hawiye ayay kusoo biyo shubtay suldaan kolley aniga kilibkeedii anaa kuu keenaya mar oo ayadu ay codkeeda ku hadlayso taas unbaa shaki yaqiin baa karoon qofta codkii ani macnaha maanta waxa aan ku iraada hadda aniga suldaan anaa ku iranaag habar gidir ah soo maaha haddaan marka wixii aniga aan ku iraado ilaa aniga igama aadan soo qaadin gurigeeni hooyada igama aadan umulin marka wixii aan ku iraa waa inaad accept tiraa soo maahan gabadhaas gabadhaasu markii hore ayadaa tiri majeerteen baan ah anugu majeerteen baan ku aqoon jiray kadibna waxay tiri dir qubaysahan ahay habeen dhaweeto markii la isqabsaday oo live-ka la soo saaray live-ayna ka hadashay weliba xataa wuxuu qarsoodi ma ahayn ma fahamte dee live-kaas wixii ay ka sheegto baan anigu duubay intiina waa kuu soo dhigaa luuqana hadhow kugu soo diraa marka waxa laakiin annaga muhiimadeeda qabiilkeeda ma ahan ilaahu ay noqotaa dee ciday rabto qabiilkeeda muhiim nooma ahan muhiim waxaa ah awlaada yararka oo masaakiinta ah oo ay maskaxda ka abiyusayaan waayo waxyaaba aan ilmaha dhagahooda u wanaagsanayn ayay reerkaasi ku akrinayeen ciyaalkaas yaryarka marka waa laga qaaday saaka waxaa tiri gabadhan isaaqa ah oo hebla cabsiye la yiraahdo oo Canada joogta anna sidaan ku sheegay waa loo soo celiyay horta waa laga qaaday ciyaalka la soo baaray laakiin waa la soo ceshay ciyaalka laakiin guri kala lagu hayaabaan maqlay laakiin dadka Canada arrin saxayna siin kara gabadhaas saaka ayadu Canada dadka degan waay waxay tiri cidii waa laga qaaday ilmihii alxamdulillah ay tiri gacan nabad hayna ku jiraan gabadhaas saaka soo dhigto oo reer Canada ah waliba isku magaalo ay degan yihiin anyway muhiimadu waxay tahay reerkan reer waxay ahaayeen fadara ah Soomaaliya inta badan culimo badan oo waxaan arkay habaaraysa oo si kal iyo laba wadaad oo u habaaraysa ma fahamtay cidaas inkaar baa ku dhacday culimada inkaartoodii ku dhacday shacabka inkaartoodii baa ku dhacday fadarayna ahaayeen cidda iyo qoladay rabaan ha ahaadaan laakiin family fadaray ahaayeen marka in ilaahay maaragtay oo haddii ilaahay hanuun ugu talagalay waxaan leenahay allaha soo hadeeye haddaan ilaahay hanuun ugu talagelina ilaahay ha naga hor wado awlaadaasna islaan gacantooda ilaahay ha geliyo intaasaan uga baxay suldaan waa maasantahay sharaf iyo karaamo laabta urro ma siinaya duran waa ku salaamaya laabta urro soo dhawow salaam calaykum suldaan waan dhawaas salaam calaykum salaam xabiibkaaga sheeg gabar biyamaala ah walaal ma fahamtaa biyamaal soo dhawow salaam calaykum soo maxaa meel kasta waxaan dhageysanaya maanta waxaan dhageysanaya dad dhahaya wiilku waa biyamaal waa saan waa laangaab dad dhahaya dhageysanaya ma fahamtay biyamaal ma aha laakiin biyamaal waxay tiri waa qabiil xun oo dabeecad xun waa sida ay nagu sheegtay iyadu dabeecadiinu aad bay u xun tahay bay tiri laakiin iyadu may sheegeen biyamaal ayadu may sheegeen laakiin dad af u gelinaya ujeeda ma fahamto oo dhahaya fiir habiye iyo daarood ayagoo way leeyihiin gabdho xun way leeyihiin wiilal xun ma fahamtay gabadhu waa gabar direed haday gabar dirta xataa oo loo soo saxiixay anaga waa gabadheena haday xumaato meeqa habiya xun meeqa daaroda xun soo gabdhahoodii ma shalay ku wareegaya wiilasha u tagay oo dabadii gabadhu ma leedahay waa biyamaal ma leedahay hadda on ka qorna gabadhu biyamaal ma aha wiilkana biyamaal ma aha dadka ku saxiixayna waxa dhahaya adeer qof xun dad ma la qabiil ma lahan Soomaaliya dhan baa wada leh ma inagu dhagan ninka biyamaal bay dadku dhagan yihiin oo Soomaaliya dhib badan walaal biyamaal bay dadku dhagan yihiin TikTok meel kasto gabadh waa biyamaal wiilku waa biyamaal adeer biyamaal ma aha gabadha haday dirtaa la soo saxiixa hataa anaga dhibkeena waa qaadanayna laakiin meeqa habiyay meeqa daarooda gabdhahooda la xumeyn jiray wiilashooda wax xumeyn jireen kuwan qacadaan waxba ma xumeyn way isqabteen testi afku daaroodiya hawiye xaqan naga dhig daaroodiya hawiye waxay yihiin iyaga laakiin midaan ku weydiinaya adeer maanta dhan ayaga ugu dhaga hadlay waxay yihiin anaga waa ognaa laakiin maanta biyamaal waa laangaab dirtu waa saan adeer ma fiicno qof in loo xadgudbo soo ma ogid waay ayaga ugu xadgudbayaan qofku